tartanka half marathonka ee sanadkiiba halka mar lagu qabto magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa la soo gabagabeeyay waxaana sanadkan tartanka ka qayb galayay dad kor u dhaafayay 60,000 oo qof oo isaga kala yimi gudaha dalkan Sweden iyo dalal kale oo caalamka ah. jawiga magaalada Gothenburg ayaa ahaa mid fiican iyadoo cirkana ay jirtay daruur yaraysay kuleylkii qorraxda ee darnaa. intii uu tartankani socday qof waliba waxa uu halgamayay sidii uu dhameystiri lahaa 21 kiiloomitir ee orodka la ordo, balse xafiiltanka ugu weyn waxa uu dhex yaalay orodyahanada ka yimaada qaaradda Afrika kuwaas oo badiba tartankani hore ugu guuleystay. kaalinta koowaad dhanka ragga waxa ku guuleystay Shatra Keming oo u dhashay dalka Kenya kaasi oo difaacday guushii sanadkii hore uu ka soo hooyay isla tartankani, waxaanu ku dhameystiray tartankani saacad iyo 8:30 ilbiriqsi. kaalinta labaad waxa ku guuleystay Chirius Bridge oo isla dalka Kenya ka soo jeeda, halka kaalinta saddexaadna uu ku guuleystay Moses Karonge oo ka soo jeeda dalka Uganda. dhanka haweenka waxa kaalinta koowaad ku guuleysatay Sitia Cherop oo ka soo jeeda dalka Kenya, taasi oo dhigtay rikoodh cusub oo dhanka haweenka tartankani hore uga qayb qaatay aanay gaadhin, waxaanay ku dhameystirtay orodkaasi 21 kiiloomitir ah saacad 8 daqiiqo iyo waliba 18 ilbiriqsi. kaalinta labaad waxa ku guuleysatay Tabitha Kisi oo isla dalka Kenya ka soo jeeda. tartankan oo ay ku beegan tahay sanad guuradiisii 4aad ayaa ah mid lagu dhiirigelinayo dhaqdhaqaaqa bani'aadamka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka dadka, waxaana la arkayay in dadka tartankani ka qayb qaadanayay ay ahaayeen kuwo da' walba leh, wajiyadoodana ay ka muuqatay farxadda iyo dhiirigelinta ay nafahooda siinayaan. dariiqyada magaalada ayaa guud ahaanba la xidhay intii uu tartankani socday, waxaana hareeraha jidadka taagnaa dadka magaalada oo dhiirigelinayay ka qaybgalayaasha tartankani. ومحمد عود محمد هروناغ نيوز Gothenburg Sweden.